iyadoo muddo kooban ay ka hadhay xafladda caleemasaarka garaad cabdirasaaq garasoofe waxaa si istaba joog ah magaalada Buuhoodle u soo gaadhayay waftiyo kala duwan oo ka qayb qaadan doona munaasabadda caleemasaarka waxaana maanta si diiran loogu soo dhaweeyay Buuhoodle wafti ballaaran uu hogaaminayo garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale waxaana socdaalka garaadka ku wehelinayay Cuqaal iyo waxgarad soo dhaweyn ballaaran oo garaadka loogu sameeyay Buuhoodle waxa warbaahinta la hadlay Chief Caaqil Axmed Cabdi Gaas Axmed Hoolif oo waftiga garaadka kamid ahaa iyo sidoo kale garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale uga mahad celiyay shacabweynaha reer Buuhoodle sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سلامة يا قورتدا ربوهد له نقصود ويسي قوبتان قوريجان أنا شوقنا أنا قوس عني على مساركي عبد الرزاق قرات صوفي عبد الرزاق قرات صوفي وسعني هوشي سا إن شاء الله سيدا قرات كويلينا وقت جيوت المامي بفلس إن شاء الله دعوية فاتحوية كرامان وانصينينا waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Cayn ee reer Buuhoodle sida wanaagsan ee sharafta leh ee tuliimada ah ee walaaltinimada ah ee gobonimada noo soo dhaweeyay waftigan ballaaran ee ka yimi magaalada Laascaanood oo ay ku jiraan Cuqaal Horeeya Caaqil Axmed Cabdi Gaas Caaqil Salaad guurtidii ningarboodkii culimaawdiinkii iyo dhalinyaradii sida aad noo soo dhaweyseen oo aad nagu soo dhaweyseen magaalada Buuhoodle aad iyo aad baad ugu mahad. dhinaca kale waxaa maanta magaalada Buuhoodle soo gaaray wasiirka caafimaadka Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye isagoo sheegay inuusan wax siyaasad ah u imaan Buuhoodle balse uu yimid caleemasaarka garaad Cabdirasaaq Garasoofe. marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa Ilaahay marka xiga waxaan mahadnaqayaa dadweynaha shacabkayga reer Buuhoodle sida sharafta iyo tuliimada leh soo dhaweeyeen inta markaan ka gudbo sida gudoomiyuhu sheegay safar reer baan soo galay waxaan u nimid inaan ka qayb galno عانا شبكة قراد عبد الرزاق قراد صافي وبريتو صاد مكان عسالكم magaalada Buuhoodle waxaa si isdaba joog ah u soo gaaray waftiyo kala duwan kuwaas oo ka qayb qaadan doona munaasabadda caleemasaarka garaad Cabdirasaaq garaad Soofe. Axmed Maxamed Nadiif Universal TV Buuhoodle waxaa si istaba joog ah u soo gaadhaya waftiyo kala duwan kuwaas oo ka qayb gali doona madasha caleemasaarka garaad Cabdirasaaq Garasoofe iyadoo goordhaweydna ay soo gaadheen magaalada Buuhoodle wafti ballaaran uu hogaaminayo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac kaasoo hogaaminaya wafti ka soo kici timay magaalada Saaxdheer Mukhtaar Cabdi Jaamac Star TV Buuhoodle.